muslimiintu waa asal raac waa xagjir muslimiinta qaarna waxay ka bixinayaan cudurdaar oo waxay leeyihiin mihi asal raac mihi xagjir anigu waxaan leeyahay waxaan ahay xagjir ku fog daacadnimada cadaaladda naxariista iyo jacaylka ma jirtaa qof ii sheegi kara in xagjir fog lagu noqdo daacadnimada cadaaladda naxariista iyo jacaylka halka ay ka xuntahay maxaa ka qaldan in xagjir wanaagsan la noqdo quraanka wuxuu leeyahay waa inaad aad daacad u ahaataa ma aha inaad daacad noqoto markaad u aragto inay dan kuugu jirto marka aysan dan kuugu jirinna aad daacad darro la imaado quraanka wuxuu ina farayaa inaan dad aad ugu wanaagsan cadaaladda iyo daacadda noqono haddaa tahay muslim diintiisa ku dhaqma waa inaad noqoto qof cadaaladda naxariista iyo daacadda ku wanaagsan waa inaan xagjir ku noqonaa jihada wanaagsan ma ahan inaan xagjir ku noqono jihada qaldan muslimku waa inuu xagjir ku noqdaa raacidda quraanka kariimka ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka ku leeyahay suuratul baqara aayadda 208 udkhulu fi silmi kaafa gala islaamka oo dhan oo macnaha islaamka oo dhameystiran qaata ma dhihi kartid qayb baan ka qaadanayaa islaamka qaybna waan ka tagayaa sidaas darteed maxay muslimiintu cudurdaarayaal u yihiin warbaahintu waxay beegsanaysaa islaamka nasiib darro annaga haddaan nahay muslimiinta waxaan haysanaa diinta ugu fiican laakiin maxaan u cabsanaynaa maxaan u cudurdaaraynaa waa waqtigan isbedelka samayn lahayn